bidixday xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa laga sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn deedna waa layga saaray dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii iminka sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. hadda garabkayga waxaa fadhiya maxamed cali maxamed oo ah inankii laagga lagala dhacay xiniyaha maalintii ay xisbiyada mucaaridku ay dhigayeen mudaharaadka. maxamed, ugu horeyn waan kugu soo dhaweynaya saab t v, bal ka waran xaaladaada caafimaad. waan dhawey walaal, waan ku dhawey de xaalkayga waad arkaysaa dhakhtar baan allaa. waxaan ka mid ah mudaharadayaashii maalintii mudaharaadayay halkaa kheyryada marayay inantii lagu tumanayay baan bilayska ka riday oo ka reebay war xiniyahaad inanta nagaga reebtay xaggaad ka keentay biigu ihi mukhtaar la idhaa dambi baadhaha saldhigga dhexe ah way la dagaalameen iyagoo afara xiniinta isaga ay kaga tuntay xiniintaydii imkana way dhimato oo layga saaray aniga cusbitaalka allah. xiniintayduna waxay dhimatay intii aan saldhigga ku jiray 9 cishay saldhigga igu hayeen waanan wax dhakhtar arag. hal mar bay dhakhtar geeyeen, dhakhtarkaasi wuxuu ku yihi waa emergency oo la qalayaa. kadib iyagu mas-uuliga may hayn oo may qalayni saldhigga igu soo celiyeen oo way igu sii hayeen. markii aan ka soo baxay aan dhakhtarka imina waa taasoo waa lay qalay, weliba 2 jeer baa imka lay qalay. markii hore dhiig baa laga soo daceeyey xinjira xiniinta, markii labaadna waa tana waa layga saaray imka way dhimatay xiniintaydii. miyir beelay markay xiniinta laadka igala dhaceen waxaanan soo miyirsaday anigoo saldhigga dhexe ku jira oo dhex jiifa weliba qeybta oobiga dadka maaragtay magaca lagaga qoro maaragtay halkaa anigoo dhex jiifan soo baraarugay markaasaan deetana sugaaday saldhiggii lay keenay. hadda xiniintaada way dhimatay? waa dhimatay haa, xalay baa layga saaray xalay. marka baaqaad u diraysaa maxay tahay maadaama aad xiniintaadii ku weyday mudaharaadkii? baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan u garanayaa, mukhtaar baa la idhaa, waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe, waa la wada garanayaa. dee waxaan codsanayaa in lai soo xidho imika isagii. markii uu xiniyaha lagaaga dhuftay laaga saldhigga lagu geeyey maxaad kala kulantay saldhigga? saldhigga waxaan kala kulmay saldhigga waan ku xidhnaa. markaan 3 cisho xidhnaa waxay yeedhay 2 sarkaal, mid waxaa la idhaa cabdi cali xayd, midna waxaa la idhaa diin qale. waxay weydiiyeen mid wuxuu igu yidhi 3 xusbi qarankee baa taageertaa. waxaan ku yihi ma qabiilkaygaa jeceshay inaad ogaato, aan si toosa kuugu sheegay. deetana kii kale waa fadhiyay igu yihi war 4 degmee 4 xaafadood Hargeysa keebaad degtaa. waxaan ku yihi weli qabiilkaygaa diidaysaani ima wareysanaysaan ma qabiilkaygaa doonaysaa inaad ogaataan baan ku yihi. dabeetana macawistaan iska bixiyey, xiniintaan ka dhaawacnaa baan tusay. anigu dhaawac baan qabaa baan ku niyoonaa dhaawacan baan weliba xidhanay. wareysaad wareysataanna qaadi kara maya dad qoladeeda doonaysa inaad ogaataan si toos ii weydiiya baan ku yihi oo waan iskaga tegay. saldhiggii baan iskaga xarooday, qolkoodii waan ka baxay oo la xareeyey. haddana 2 cisho kadib dabagala ay wareystay, dabagale jananka ciidanka isagu geed bayguma soo gabana toos buu yidhi qolo maatay. waxaan ku yihi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaadayay? wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisii baa mudaharaaday iyo 200 oo midgaah ayaa mudaharaadaysay buu igu yidhi. waana janankii dhammaaya ciidamada bilayska noocaasu isaguna igu jawaabay, su-aashaas ii weydiiyay anna saasaan ugu jawaabay. intaa wixii ka dambeeyey isna dhaawacaygan soo waxaan ku yihi taliya anigu waan dhaawacanay, xiniintaasaa laygu dhuftay, mas-uulkii ugu sarreeyay ciidamada qarankaa tay, warna kama haysid saldhiggan waxa ka socda. kuwii igu dhuftayna way joogaan oo ninkaasaa igu dhuftaan iyo madaxa baadhaha saldhigga ah. intaa wax dheer oon ku hayaana ma jirtee anaaba anigu dhakhtar u baahan baan ku ihi maanta oo dhibanaa. intaa wax dheer oon isweydiinay ma jirto. saldhigga imisaad ku xidhnayd? waxaan ku xidhnaa 9 cisho. 9 cisho ma heshay gargaar caafimaad? maan helin wax gargaar caafimaad maan helin gargaar caafimaad daayo macaa ehelkayga layma soo dayn. dadka marka dadkay baadi doonaya yimaadaanay saldhigga iga baadhayeen ma jooga baa lagu dhaha. dadka qaar baa madheero loo dhaadhiciyo madheero ka baadi doono bay ku lahaayeen, cid layma soo daynin. markii aan ka soo baxay maxkamadda layga soo daayay ayaama kadib baan dhakhtarka imi. ayaama kadib baa dhakhtarka lay keenay. dhakhtarkaana imika laygu qalay 2 jeer. 2 jeer baa lay qalo maanta ku 5 cishaan allaa dhakhtarka.
haa marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn eedna waa layga saaray dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. xaata dhakhtarkan aad ku jirto ma dowladdaa ku keentay mise qoyska? maye dowladda iyo qoyskaygu midnaba ima keenin waxay keenay guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed cabdilaahi adigu xisbiga mucaaradka ay keenay igana bixiyey dhakhtarka ilaahay baana ka abaalmarin doona dowladda keentayna ma jirto qoyskayguna imu keenin. haa marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn eedna waa layga saaray dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalinta